السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بهوين الصوماليات كنا الأصل مرت شرفت وتمت وزير كأرماء جودها مستر عبدي سمت أي ما أنت مرتنوعة مركا وحن إن شاء الله ويدين دونا سفر كيس إيو والله وكسب سنة هاي عبد سمت جالس يركسلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مركا ودين مهد علنا يا مرلبادنا وحوي قلبت هالكان أنا مر هذا وساعة كور waxaan rajeynayaa hadii ilaahay yiraahdo dhowr maalmood inaan joogo waxayna la xiriirtaa socdaal aan rabo inaan kula kulmo xubno kala duwan oo dawladda Denmark dawladda Norway oo aan maxaa la yiraahdaa ay naga dhaxayaan xiriir fara badan oo kala duwan ama ha noqoto dhinaca immigration-ka ama ha noqoto dhinacyo kale yaan rajeynayaa hadii ilaahay inaan dhawaan arko waxaana qiyaasay inaan joogi doono ilaa iyo adigu 2-3 maalmood oo hadda ka bacday. جلوسير شركة برنامج كأنتو تمد محا كمية هتسلي كرتا ودتك أرمها ما حيكون سبسين هاي شركة سوق بتين لندن كدعي ومن قيبتي سيدنا بيتا ما وحنا نقطة تاون كرتا. ما يرنتي اسم لهن شركة لندن إياه أرمها الكون اسم لهن وحيل السعودية سد اكتهيبة محل هذا مدح هي السعودالك ودالك جنرال جافو وحنا وبدأ هاي أرمي الحريرة immigration الحريرة وحنا رجينا إن نعيك لكل دون على كل مسجد وزارة الرماية بدأ يحوكلاته كل يوم أنت نشوف وحنا أركضونا مسؤولين كل دون أو دال كان لكن أرنتي لندن وكدون تعرنتان أرمي لندن كدعي وحير من نقطة تاوكرتا سيدا ودعي يو سيدا دتك فرحت بدن أي دريمان ومدى الصوماليات مادام لندن أرنتي waxay ahayd sidaad ogtahayba muddo dheer oo 20 sanadood markii ugu horeysay oo suurtagal noqotay in laba dhinac soo fariistaan oo wada hadlaan oo ay ka wada hadlaan ayahooda runtiina wuxuu ahaa shir 2 maalmood socday oo si wanaagsan la soo afkartay muhiimadda ugu muhiimsan waxay ahayd in la wada hadlo waxaan isleeyahay hadii la wada hadlo kulli waxba laabi maayaan marka muhiimadda ugu muhiimsan waxay ahayd in si official loo furo wada hadal open ah oo dhexmara labada dhinac waxaan rajeynayaa dhawaanna inay kulmi doonaan mas'uuliyiinta ayaga oo si dhameystira doona hadii ilaahay yiraahdo waxyaabihi aan bilownay arrimahan hadda shirka ka dhacay London qaybtiisa dambeeto madaxda dawladda ay marka kulmayaan intee kulmi doonaan isleedahay adiga waxaan rajeynayaa kulli ayaga waqtiga iyo time-ka iyo meesha kulmayaan laakiin qiyaasta waxaan qiyaasay inay kulmi doonaan meesha la yiraahdo Abu Dhabi inay kulmi doonaan waqti dhow hadii ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda oo ay kaga wada hadli doonaan sidii u taageeri lahaayeen arrimihii markii hore ayagu ay noo xil saarteen oo ahayd go'aamadii ka soo baxay shirkii la isugu yimid wadanka United Kingdom maadaama aad tahay wasiirka arrimaha gudaha amniga ka jira magaalada Muqdisho dareen badan ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan sidee adiga kula tahay bismillaah markii horta waxa weeye markii la fiiriyo amniga guud ahaan Soomaaliya wax la taaban kara iska bedelay muddooyinkan dambeeto markii loo fiiriyo dhowr bilood hadda ka hor iyo hadeertaan waxaan qiyaas karnaa in wax badan iska bedeleen khaasatan magaalada madaxda oo Muqdisho oo runaantii culays badan la saaray amnigeeda waxaa dareemaysaa moraalka dadku inuu xogaa intii hore ka fiican yahay amniguna sidii hore ka fiican yahay hadda waa dhacaan mararka qaarkood waxyaabo badan waa dhacaan laakiin capacity-ga dawladda marka la fiiriyo iyo amnigu maanta meesha marayo wax maxaa la yiraahdaa runaantii guul u ah ummadda Soomaaliyeed baa laga sameeyay waxaan rajeynayaa meesha joogto inay ka socoto ma inaysan dib uga sii dhicin maanta ay taariikhdu tahay 26 June ayaa maanta waxa soo gaaray magaalada Oslo wasiirka arrimaha gudaha عبد السمت مستر عبد السمت أي يميت أو يجافو جنرال جافو واحد السعودالك صوماليا مركا دي لا يرادو بري بريد أما أي نرجع قدونا
bacdalkiiba